هروو sheegnay waxa insha Allah inoo bilaabmayo waxa weeyaan quraan saarkii oo waxa weeyaan shalay insha Allah waa inuu bilownay iyo waxa weeyaan casharkii oo isagana insha Allah waa inuu qaadan doono sideen walaalayaal horow sheegnay shaygan wax ku daweynayna waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa weeye waa dawooyinka ugu qaadiyaysan ee waxa weeye ugu heerka sareysa ee ugu tayada sareysa weeye insha Allah waxa soo raaca waa casharka iyo biyaha samsamka oo iyagana insha Allah casharka aan ku dari doono casharka insha Allah jirka kore laga qaadanayo iyo kaafka laga cabayo labadaba insha Allah waynu ku daraynaa Ilaahay idinkiisa marka insha Allah waynu bilaabaynaa waynu bilaabmayaan insha Allah quraankii bismillah wa ujeedaan waxaan u malanayaa qof waliba inuu arko bihi samsamka insha Allah waynaga casharkii ku daray Ilaahay idinkiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisina waa ku akhrinay insha Allah hawsha waynu bilaabaynaa niyooyinkeenu sida ay yihiin iyo waxa weeyaan qaabka ay yihiin baa Allah subhanahu wa ta'ala waxa nagu siinaya marka quraanku qofka wuxuu u jira intuu aaminsan yahay ee laabtiisa uu ku jiro ayuu quraanku waxa weeyaan u jira qofka oo uu maaragtay caafimaad iyo dawo kaga helaya marka insha Allah quraanka walaalayaal niyasan iyo niyo wanaagsan insha Allah aan ku niyeysano in Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu caafiyo marka insha Allah quraanki baynu bilaabaynaa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إن شاء الله ولا الليال هل كان وحوي قرآن بوصل دونتين إلهي سبحانه وتعالى نيدا ونكسن يا كنت معدن إلهي سبحانه وتعالى يذكر ساقه وحنونا إن شاء الله ويدين كجسيبا إن شاء الله ويدين كدو عينينا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كأي عشر كان يدين أقبله ولا الليال وحل يسكده ويوحى وقضي مبضن وإلهي سبحانه وتعالى كلام كي سويان ذاتك وحل قدون إياه inay yeeshaan cilaaqa maca Allah qofku in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku xidhnaado oo waxa weeyaan qofna aanu ku xidhnaanin gaara Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu isu dhiibo iyo waxa weeyaan kitaabkiisa ayayna walaalayaal u baahanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ayuu wuxuu ku tilmaamay dawo laakiin ashkhas gaara Ilaahay subhanahu wa ta'ala dawo kuma tilmaamin Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay ya ayuha an-nas قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إلهي سبحانه وتعالى وحولي يا أيها الناس إلهي عبد ربنا وضواقي ذاتك أوردن قال يا مسلم إلهي سبحانه وتعالى وحولي كتاب كري وحولي يا موعظة وحولي وانو يقفك وحقاذنا وانا يا هبال سبحانه وتعالى وليه وهدى هنون أي كتاب قد عيسى لقاه شفاء لما في الصدور وحيابها لا تكتشر حمانها هي حسدك هي بغضك هي وحيابها ما أنت ومد بابيي هي هلك قارسيي وحوى الله سبحانه وتعالى كتاب كيسا أي كد واقفكم مركو لا تقليه أي وحيابها صورنا من وحوى أنا يكبحيان markaawar allayaal waxaynu u baahannahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa inaynu kor u qaadno nabiga kaleey salatu wassalaam waxa uu leeyahay inna allaha yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman wa yadhu bihi akharin Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkan dad buu kor ugu qaadaya meesha ku gaarsiinaya qaarna hoos buu u dhigayaa waa duleynaya dadka qaata ee dhaqankiisa qaata ee dawadiisa qaata ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa ku kalsoonaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha u geynaya
ويضع به آخرين كوا وحويا كتابك إلهي الدلينية كتابك إلهي عكت وستيذ القلينية الدولية إنه السيئ إلهي سبحانه وتعالى كلام كيسو كوانا إلهي سبحانه وتعالى أي وحويا هوسو لقيا مركا ورا الليال إن شاء الله وحين أباهن إلهي سبحانه وتعالى إنه نسكحنا وحويا قفك إلهي كتابك وحويا إنه قاطع إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس سوى حوين حرير كيس متوصل إلهي سبحانه وتعالى كحر الأمور نقضه اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله يرقيكم الله يشفيكم بسم الله يبريكم من كل داء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسد أعوذكم بكلمات الله تامات أعوذكم بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذكم بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم